بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال وبرنامج كأني دينتي الدنيا سيزن كيان كجهل لأني البحنمة أنت دو الله إن وحن كهل لأن أرنولد تويمب أركتيد وكقبي البحنمة يسيدو أفسر البحنمة أرنولد تويمب وحوها نين مفكرة ومؤرخ قرني سجال طبنات دمات كيسي دشي سنة كمركوها كن سديد بقول سديتني سجالكي wuxuu ka soo jeeday famil middle class aabihiisna uu ahaa nin u shaqeeya shirkad aad u weyn oo shaaha iyo sameyn jirtay hooyadiisna waxay ahayd gabar barofesoorad oo ku takhasustay cilmiga taariikhda ayadayna ahayd hooyadiis qoftii ku ilhaamisay ama jeclaysiisay inuu cilmiga taariikhda barto Arnold Toynbee wuxuu u dhaxeeyay taariikhdiisa 1889 wuxuuna dhintay 1975 wuxuu noolaa xilli adduunku uu dhacdooyin aad u culculus oo wax badan taariikhda ka bedelay ay soo martay buu noolaa asaga wuxuu ahaa nin bartay cilmiga taariikhda wuxuuna ka baxay jaamacadda Oxford ee London ku taala Ingiriiska kadib wuxuu macallin ka noqday oo cilmiga taariikhda uu ka dhigay jaamacadda London kadib waxaa mas'uul looga dhigay maxadkii internationalka siyaasadda ahaa oo boqortooyada Ingiriiska ee lahayd 1925 kadib wuxuu u wareegay Arnold Toynbee majaalka siyaasadda oo wuxuu xubin ka noqday firfircoon guddigii dawladda Ingiriiska u matalayay nabadeyntii 1990 iyo 1919 ka dhacday dhulkaas iyo France la heshiisiinaya dawladihii uu dhexmaray dagaalkii koobaad ee adduunka oo dhamaaday 1917 meeshaas oo ay ku guuleysteen dawladihii uu hogaaminayay Mareykanka Ingiriiska iyo Faransiiska lagana guuleystay dawladihii Jarmalka iyo Talyaaniga iyo Hungary iyo dawladii Turkida ahaa oo khilaafada Uthmaaniyiinta ahayd wuxuu halka ku matalayay ninkii ahaa Arnold Toynbee dawladiisa Ingiriiska mar labaad buu haddana dawladda Ingiriiska wuxuu ku matalay shirkii isla Faransiiska ka dhacayo nabadeynta ahaa sulxiga ahaa markuu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka 1945 mar labaadna ay ku guuleysatay dawladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska la socday ninka la yiraahdo Arnold Toynbee wuxuu ahaa nin nool dagaalkii koobaad ee adduunka dagaalkii labaad ee adduunka ay ku dhamaadeen dad lagu qiyaasay 65 milyan oo dad wadamo badanna ay ku baaba'een burbur badanna uu soo gaaray dawladihii Yurubta ahaa khasaaro dhaqaalo iyo mid basharba uu soo gaaray iyo mid horumarba wuxuu noolaa Arnold Toynbee xilli dawladiisii Ingiriiska ahayd ay ka degtay calankiina ay ku wareejisay ilbaxnimada caalamka iyo hoggaanka caalamka ay ku wareejisay dawladda Mareykanka asagoo u jeeda markii laga guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka laakiin uu soo gargaaray ay maartay ay caawisay dawladda Mareykanka ba Mareykanka wuxuu la wareegay liidka caalamka qadiyadaha dawliga ahna dawladda Mareykanka baa looga dambeeyay meesha dawladda Ingiriiska ay ahaan jirtay dawladda 500 oo sano qoraxdeeduba aysan dhici jirinba dunida qayb badan oo kamidana gumeysatay qayb badan oo kamidana influence iyo raad ku lahayd Arnold Toynbee wuxuu ahaa nin mufakkir taariikhdana bartay diraaso ku sameeyay 27 mujtamac ama ilbax oo adduunka soo maray kuwa badan oo kamidana ay abaadeen oo baaba'een kuwana ay nool yihiin sida asagaba uu kitaabkiisa ku qoray wuxuu diyaarinayay 40 sano xilli kutubo badan buu runtii ka qoray laakiin waxa ugu caansanaa oo ugu weyn kutubta uu Arnold Toynbee qoray adduunkana baal dahaba uga galay kitaabka la yiraahdo diraasat taariikh ama study of history kitaabkaas wuxuu yahay kitaab aad runtii u weyn oo 12 majalladood ka koobma ama 12 buu ka koobma saddexdii ugu horeysay wuxuu soo saaray 1934 haddana saddexdii ku xigtay wuxuu soo saaray 1939 shan sano kadib markii dagaalka koobaad labaad adduunka uu dhamaadayna afartii majalladood ku xigtay soo saaray 10 waxay isla noqdeen book oo hal book isla wada oo la yiraahdo study of history ama diraasat taariikh markuu soo saaray 10ka book wuxuu kiciyay dajja iyo su'aalo badan iyo doodo badan awsaat cilmiga
dadka kutaabta ah, dadka wax qora, dadka mu'alifiinta ah iyo dadka mufakiriinta ahba. dad badanoo asaga taageeray, dad khilaafay, dad maaragtay naqdi iyo dhaleecin u soo jeediyey, intaba way iskugu jireen. waxaa runtii cajiiba waxyaalaha lagu qabsaday oo ay ka mid ahayd siduu cadaaladda ugu sameeyey taariikhda iyo xadaaradda islaamka. waana midda runtii nagu kaliftay inaan Arnold Toynbee isagoo maaragtay nin reer galbeed oo haddana Ingiriis ah inaan soo qaadanno kutubtiisa iyo fikirkiisa iyo nadariyaadkiisa iyo aragtiyadii uu dhex dhigay kutubtii uu qoray. wuxuu ahaa nin cadaalad ka sameeyey, insaafna ka sameeyey ilbaxnimada islaamka, si qurux badan oo daacad ahna uga hadlay. wuxuuna ahaa dad fara ku tiris ah oo ka mid ah mufakiriinta iyo dadka ilbaxda oo reer galbeedka ah oo taariikhda islaamka si hufan uga hadlay. wuxuu kaloo aad uga sheekeeyey ibnu khalduun oo raad ku lahaa isaga, maadaama 600 sano uu ka dambeeyey kutubtiisana uu soo akhristay. wuxuuna kaga hadlay ilaa 15 safxadood ibnu khalduun iyo aragtiyadiisa iyo manhajiyadiisa iyo inuu ahaa caqliga ama cabqariyadda ugu sarreysa oo aadanaha soo martay oo falsafada taariikhda qortay. abid buu yidhi, muslim iyo qof aan muslim ahaynba. arrimahaas waxay ka mid ahaayeen Arnold Toynbee kuwa lagu qabsaday oo la yidhi sidee ku dhici kartaa inaad ma aragtay dad carab ahoo laga guulaystay oo mutakhalifiin ahoo dib dhacsan inaad saas u ammaantid, nin 600 sano kaa horreeyey oo muslim ahaa inaad noo ammaantid iyo maxay ku keentay. way ka mid ahaayeen arrimihii lagu qabsaday. kitaabka marka 1961dii wuxuu raacsiiyey majallad kale ama buug kale ku soo daray oo 11 uu uga dhigay uu kaga hadlayo maabka caalamka oo taariikhda iyo juqraafikal ahaan iyo ummaduhu meelahay soo mareen ayadoo maabaysan iyo xadaaradihii buu ku soo daray. kadibna wuxuu 12 uga dhigay majalladii ugu dambeysay uga jawaabayay ruduudii iyo ishkaaliyaadkii la keenay iyo doodihii la weydiiyey. wuxuu kaloo ku cadeeyey aragtiyadiisa kuwa xoogaa mugdiga uu galayo in la faahfaahiyo u baahnaa. wuxuu kaloo ku saxay aragtiyadii iyo masaa'ishii uu ku khaldamay oo looga saxsanaa. Arnold Toynbee manhajiyadiisa iyo aragtiyada uu qaatay wuxuu saldhig runta uga dhigay in la diraaseeyey bulshooyinka laga fiiriyo dhinac walba oo noloshooda raadka ku leh, dhinac dhaqaalo, dhinac maaragtay siyaasadeed, dhinac dhaqan, dhinac diimeed, dhinac taariikh ahaan iyo dhinac environmental ahaanba bii'ada iyo dabiicada inay wax ka bedelayso. wuxuuna saldhig uga dhigay aragtiyadiisii hal aragti oo runtii cajiib ah uu u bixiyey challenge and respond, ama carabi ahaan lagu yiraahdo التحدي والاستجابة. ama Soomaali ahaan anigu aan isri waxaa lagu macnayn karaa aragtida ka falcelinta caqabadaha, aragtida ka falcelinta caqabadaha ama challenge and respond. aragtidaas wuxuu runtii uga dhigay falsafadiisa ilbaxnimada ah saldhig oo wuxuu leeyahay bini aadanku ama mujtamacaadku ilbaxnimadooda waxay ku cadaataa oo lagu ogaadaa caqabadaha hela iyo sida uga falceliyaan. wuxuuna ku soo koobay caqabadaha bini aadanka ku dhaca 5 caqabado waaweyn. caqabada koowaad wuxuu u bixiyay al-araad as-sacba, dhulalka adag oo lagu nool yahay. waxaa ka mid ah dhul saxaro ah. dad baa marka waxay degan yihiin bulshooyinka ka mid ah dhulal saxaro ah oo aanan beerana lahayn, biyana lahayn, roobabna lahayn, angag ah oo saxaro ah. taas waa caqabad oo xagga dabiicadda ka timid. bini aadanka ama bulshada dhulka ku nool sidee talo uga ficil celin karaan, sidee biyo ula soo bixi karaan, sidee maaragtay beero u samaysan karaan, sidee nolol ula soo bixi karaan, sidee u samaysan karaan qaboojiye. taasaa waxay tahay ilbaxnimada ay ka ficil celinayaan caqabadda. waxaa la mid ah dadka ku nool dhulalka barafka sida maaragtay Scandinavian-kan iyo Yurubtan iyo Maraykankan iyo Canada oo kale iyo. bal waxaad maaragtay fiirisaa 500 sano 400 sano ka hor dadka ku noolaa dhulalkan barafka ah talow maxay heat iyo kuleel ka dhigan jireen, maxay raaci jireen talow ku socon jireen, dhar noocayay ku labisan jireen, see ugu noolaayeen barafka noocaana. taas marka waa caqabad xagga dhulka ka timid, waa challenge. dadkii dhex deganaa respond maxay ka sameeyeen? waxay la soo baxeen maaragtay guryo adag, hiidad, labis adag, gawaari waaweyn oo lagu xaaqayo ciidaha iyo maaragtay barafka lagu xaaqayo ilaa ay hormareen oo ilbaxnimada hadda caalamka ay liid garaynayaan. sidaasuu marka ibnu khalduun wuxuu u yidhi environmentalka ay bini'aadanka ku nool yihiin ama bii'ada qayb weyn bay ka qaadataa ilbaxnimadooda.
wuxuuba ku togay ibnu khalduun dadyawa ku nool meelaha saxarada iyo kuleylka ah badanaaba ama aalaaba waxaa ka hormara kuwa dhulalka barafka iyo qabowga ku nool laba wuxuu yidhi ninkii Arnold Toynbee ahaa waxaa ka mid a kawaarista dabiiciga ah waa roobabka maaragtay daadadka waxaa la mida baahida iyo abaaraha waxaa la mida arrimahaas dhan waxaa la yidhahdaa dabiiciga kawaarista dabiiciga daacuunada caabuqa sida hadda COVID-19 hadda caalamka haysta kuwaas waa kawaaris dabiiciya wuxuu leeyahay marka Arnold Toynbee aalaaba markii ummaduhu ay caabuq noocaas ama kawaaris dabiiciya ay ku timaado response bay ka sameeyaan way ka falceliyaan kuwa ka falceliyaana ilbaxnimadu u dhowdahay hadda caalamka waxaan haysataa coronavirus wax badan buu adduunka ka bedelay xag waxbarashuu ka bedelay isku imaatinkii buu ka bedelay ziyaaraadkii buu ka bedelay waxbarashadii buu ka bedelay ganacsigii buu ka bedelay waxaa aad marka u hormaray shirkadaha iyo kambaniyada oo xagga online-ka ka shaqaysan jiray shirkadaha social maaragtay media ka shaqaysta shirkadda Amazon oo kale iyo waxaana keenaya inay dhaqaale fiican ay helaan marka hore waxay u diyaarsanaayeen maaragtay qaab oo dadku ay kala fog yihiin inay u shaqaystaan bulshooyinka marka u diyaarsan inay ka falceliyaan COVID-19 baa ilbaxnimada ku hormaraya bulshooyinka aanan markii horeba u diyaarsanayna takhallufkii iyo dib u dhici unbaa kusii ziyaadaya waxaa la miduu yidhi awood kaa baxsan oo ku gumaysata waa gumaysigii isticmaarka wuxuu tusaale u soo qaatay Arnold Toynbee oo anagana tusaale u soo qaadan karnaa nagu filan ninkii la dhihi jiray Timor-Leste oo Tataarka maamulayay markii dowladda Cuthmaaniyiinta uu magaalada Ankara iyo caasimadoodii ku qabsaday oo ku gumaaday runtii shoog bay ku riday laakiin 50 sano kadib bay nimankii Ataraagta ahaa ka falceliyeen markaasay ayagana boqortooyadii ama dowladdii weyneed oo Byzantiyada ahayd dhulka dhigeen ilaa caasimadooda ay la wareegeen waxaa la mid ah oo tusaale ah dowladda Japan markii 1945 laba nuclear oo waaweyn Hiroshima iyo Nagasaki lagu dhuftay oo magaalooyinkii Dakun laga dhigay ilaa boqorkii Japan laga saxeexay inuu tanaasulay oo isdhiibay oo laga saxeexay inuusan military samaysan karin oo awood kale samaysan karin dowladda waxaa ku dhacay challenge iyo caqabad aad u weyn tolo dowladda Japan ma ka falcelisay mise waxay tiri waana laga adkaaday waana la gumaystay waana la dulmiyay oo tolo ayay madluumiye iyo dowr noocaas ma ciyaartay waa maya dowladdii Japan isla markiiba waxay samaysay guddi committee hoosare oo national committee oo istaraatiijiga ka falceliya caqabada noocaas ilaa 40 sano gudaheed ay noqotay dowladda labaad oo adduunka ugu dhaqaalaha badan sideedamaadkii iyo sagaashamaadkii iyo ilaa 2000 iyo xogaagii waxay ahayd dowladda labaad adduunka ugu dhaqaalaha badan Mareykanka ka waha Japanka ku xigay mar damba waxaa ka qaatay kaalinta China ilaa hadda waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad xagga dhaqaalaha adduunka wax soo saarka iyo shirkadaheeda iyo kambaniyadeedana waaba number 1 baa la dhihi karaa kuwa gawaarida iyo maaragtay telefonaadka iyo talaagadaha iyo wax soo saarkaas oo dhan waxaa la mid ah dowladda Soomaaliya annagoo dad iska maaragtay reer baadiyaha u badan baa waxaa hal mar na gumaystay Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis isla markii shacabka Soomaaliyeed uu ka falceliyay challenge-gaas wuxuu la dagaalamay oo ka looltamay oo ka dhidhiyay gumaysi inuu wadanka qabsado ilaa marka dambe gumaysiga uu ka guuleystay banaanka uu dhigay dowlad Soomaaliyeedna uu sameeyay taa waa challenge iyo response haddii marka qofka dhibaatada ay ku dhacdo uu response la yimaado ilbaxnimada halkaas ay ka timaadaan aragtidiisa marka runtii challenge and response oo Arnold Toynbee la yimid runtii waa aragti aad iyo aad cajiib u ah soona koobaysa ilbaxnimada iyo maaragtay waxa lagu taariifiyay markii la weydiiyay Arnold Toynbee maxaa ilbaxnimo ku qeexaysaa wuxuu yiri waa challenge and response التحدي والاستجابة aragtida ka falcelinta caqabadaha culimo badan baa walaalayaal tarjumay ama fasiray ilbaxnimada Waldo Yoronti oo kale wuxuu leeyahay ilbaxnimada waxa la yiraahdaa ilbaxnimada ka caawisa mujtamacaadka inay ay sara u qaadaan dhaqaalahooda iyo wax soo saarkooda culture-ka ah iyo kan siyaasadeed iyo kan culumta iyo sayniska iyo suugaanta ninkii Jarmalka ahaa ilbaxnimada waxa way al-intaajiyya wax soo saar wadanka wax soo saar leh baa ilbax leh wadanka kalena waa iska fadhiid haddaan soo koobno ilbaxnimada walaalayaal waxaa la dhihi karaa waxay leedahay 4 qaybood oo waaweyn waa resource dhaqaalo iyo system siyaasadeed iyo dhaqan iyo culture iyo culum iyo hal abuur iyo maaragtay funuunta iyo suugaanta ilbaxnimada walaalayaal
waxbay naga anfacaysaa haddaanu nahay bilaadan waxay kaa anfacaysaa ilbaxnimada oo aan u diraasaynaynaa waxay kor u qaadaa wax soo saarka bilaadanka waxay ka ilaalisaa fawdada iyo isbarbaryaaca waxay u samaysaa haybad iyo inay dowladaha kugu dhegan oo dariskaaga kaa xishoodaan waxay kugu samaysaa hanti iyo power military intaasba ilbaxnimada way keentaa fawaa'id badanna way u leedahay qofka bilaadanka iyo bulshooyinka iyo dowladahaba walaalayaal ilbaxnimada waxay timaadaa markii bulshooyinku nabad ay helaan marka bulshooyinku xasilooni ay helaan waxay bilaabataa markii bulshooyinka ay fowdada ka tagaan dhaqan wanaagsanna ay la yimaadaan waxayna gaarsiisaa ilaa masaafi alcaalam almutaqadim si uu ula tartamaan dowladahan hadda hormaray inta kulan kale aan ka tegayna waxaan idin leeyahay wa ilaa liqaa'in aakhar wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh